gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ciidan Janar Faysal Cali Waraabe ayaa mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye u soo jeediyay inay raacaan xeerka xisbigooda si aanu u sii kordhin khilaafku. Inay u isku horjeedno xisbiyada iyo dawladda isku horjeeday markaan wax isku jeesay xisbigii xukunka hayay. Marka waxaan ku jecelahay madaxweynuhu dhaqso u yimaadaan jecelahay arintan kulmiyada si nidaamkeed gudoomiye soo xeerku la raaca xeer baa jira. Faysal Cali Waraabe oo warramay Honkebel ayaa dhinaca kale dawladda Itoobiya ku hambaliyay sida ay Somaliland uga shaqeysay arrimaha Sultan Wabar waxaanu taasi u diray dad dhawaan ku dhintay magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal. Waxaan kala jeclahay iyadana taniyo dawladda Itoobiya iyadana talaabo ka qaaday in magaalada Wabar iyo koox la socday waxaan kala iyadana doonaynaa inaan taxsiyo dadka ku dhintay labadii weerarkii ugu qoray barasaabka iyo weerarkii magaalada dhanreed ku dhimatay arrimahaasna waan rool banka ciyaaray madaxweyne ku-xigeenka laba jeer baan u tagay anigu de kuma faana dad baa meel baan soo dhigay propaganda si fiican baan uga soconaa shariifta waan soo maray. sidoo kale Faysal Cali Waraabe ayaa dawladaha hoose ee Somaliland ku eedeeyay in ay u sameeysan yihiin cunista dhulka hase yeeshee ay ka gaabiyeen wax qabadkii loo soo doortay. magaalooyinka gudaafad bay soo baxeen annagii soo dooranana accountable noomaha dawladdiina waxa la yeeyay waan soo doorto accountable ma marka cid alla maanta cid dawladda hoose accountable shaqana waxay ka bartaan dhul soo loo cuno marka waxaan u baahanahay najcadan cunaaye Honkebel TV Hargeysa.